بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناسن dhegeystayaal meel ka soo wad nagala socotaan kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena dariiqa toosan oo si toos ah idinka imanaya stuudiyaha idaacadda qaranka isla markaan halkan idinku diyaariyay sheekha barnaamijka fadilatu sheekh Mohamed Sheekh Umar Dirir dhegeystaha koobaad ee barnaamijkeena bilaabaya. Allo السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإسماعيل عبد الرحمن ورديسي توغا شيخ محمد عمر يسعد اللي يدقي سياسة أدمان بن سلام. حياك الله. هل سؤال والله شيخ دوني الله بركينا ويديو. أيه. سؤال سؤال وين سؤال معلومة صحيح الحين كذا ناي بدون تهاي. أيه. وحلا يلاحظوا خبايا. وما كذا رمانك وسكوها يستو أي قول واحد يكون ده يعني أنا يستهاي مرابحة وحلا يلاحظوا إلا متهاي والمركة إنه خباء حكم كذا يوم والمرابحة واحد يكون كل الدوين هنا. شيخ خير الله في يوم مطبلها أديات وقفة صاير. ما سند شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. سؤال إسماعيل أرنتني مكتاجن مرابحة إيه الربادة والله أرمودا آدو كلا الدوان مرابحة إيه الربادو مرابحة وحى استعماله بانك إسلامي جاه ربادنا وحى استعماله بانك ربادة كشقية مرابحة وإيب ولا جف فائدة ومعنا مرابحة مركز وكسي معاشد وي كسي معاشد رابح يرابح مرابحة ومن الربح بيكتم وفائده سادرادد وقفكي وحسوي بسدي كيوري انت اسان سيسته ولا يجسو سيه انت اي معاش واي انا كو معاش وسيدي باد كغا يبسد مثل adiga baabuur soo iibsaday qof baa waxaad ku tiri baabuurka waxa la iga siiyay 10 kun de kun iyo macaash waan ku macaashay buu uu ka sii iibsaday marka waa iib hore iyo iib dambe lacagtii qofkan uu shubi lahaa baa la amaahinaya markii uu iibsaday alaabta kadib markuu iibsaday laga macaashay kadib baa la oranayaa ama isagoo oranaya lacagta igu lahaado muddada inta leeg baan ku bixinaya marka muraabaxadu waa nooca weeye ribaduna waxa weeye qofkii lacag cadaan oo cash la siiyo lana yiraahdo inta saa ku saaran saasay u kala duwan yihiin midi waa xalaal oo de kutubta fiqiga ahkaamta waa cadaynaysa oo baabkii beeca iyo iibkii buu soo galaya tan kalena ribaduna waa xaraan labadabana aayad qura ayaa ilaahay uu ku wada sheegay macnaha muraabaxadu inay xalaal tahay ribaduna inay xaraan tahay markaas ilaahay wuxuu yiri wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba iibka bila ribada ilaahay waa xaraantinimeeyay macnaha uu xalaalay iibka ilaahay uu xalaalay amaahda maca siyaadada ana uu xaraantinimeeyay aayadaas labada jumla isku xiga ayaa midna ay muraabaxada xalaaleynaysa oo ahalla Allahu al-bay'a wa baa'i ilaahay uu xalaalay waxba la kala iibsaday wa harrama ar-riba ribadiina uu xaraantinimeeyay oo waa lacagta kaashka ee dulsaar leh saadarteed wax dhibo dadkii dalka ay u keenaysaa ma jiro mar hadduu shaygan ilaahay xaraantinimeeyay waana iska macruufo dadkii aadka u isticmaalaya adduunyada gaalada bari dhaweed waa kuwii kacay waxaad maqlaysay dawlad hablaaya imka Greega iyo Turkiga waa laba dawladood oo jaara Greeguna uu faqri buu u baxay iyadoo Yurub oo dhan caawinayso dawladda islaamkiina kor bay u socotay dhaqaalahaan marka nimankii ribada aadka u isticmaalayay waxay noognahay inay kaceen yamxaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ilaahay baa wuxuu yiri rabbi wixii sadaqado laga bixiyana wuu kordhiyaa wixii riba ay ku jirtana wuu baabiiyaa tii baynu aragnay marka waxay doonayaan dabada ka wadaano inay dalkeena islaamka isagana soo galiyaan ribada ku gubaan saadaradeed waa in aqoon dadku ay u yeeshaan dhaqaalaha saxda islaamiga ilaahoodana ay adeecaan xaraantana iska ilaaliyaan wallahu a'lam aad baad mahadsantahay sheekh Mohamed dalka waa islaam dadka kuwada noolna dhamaantood waa muslimiin dastuurka qarankan wax ku taala wax kasta oo shariicada islaamka ka soo horjeeda waxba kama jiraan ribadana waa mamnuucba xukunka diintana waa sheegtay waxa laga yaabaa in eriyo fudud si fudud dadka qaar ugu dhawaaqaan oo wax diidi kariya ama lagu diido lama garanayo ay si yar u yiraahdaan xaraan sheekh Mohamed ilaahay mamnuucay hadduu qofku si fudud u yiraahdo waxaan ku diido ama ima muuqato ama garan maayo sharcan maxay diinta islaamka qabtaa qofku horta sidiisaba jahli waxa loogu cudur daaraa xagga shariicadeena oo la yiraahdo qofka jahli baa loogu cudur daaraya marka wixii aan loo sheegin ee aan waxba ka ogeyn laakiin marka loo sheego ee uu canaatamo quraan baa loo sheegay xadiis baa loo sheegay daliilkii baa loo sheegay culimada aqoonta walahayd baa u cadeeyay kadibna isagoo qarad kale leh isagoo ujeedo kale la ama cid kale ay ka dhax hadlayso ama cid la canaatamaya ayaa uu iska diiday daliilkii marka waxa loola xisaabtamaya oo loo xukumaya sidii qofka caalimka ah oo kale saadaradeed wax quraan sheegay
qur-aankeena kariimkii uu sheegay iyo axaadiidta rasuulka ku cad hadduu qofku dafiro islaamku kaga baxaya masaladaas iskuma khilaafsana culimada caqiidadu kuwii hore iyo kuwii dambe shay uu ku qancay inuu diintu ay sheegtay markuu dafiro qofku dee qur-aankiibuu diiday saa daraaddeed ereyada la iska odhanayo waa inuu qofku ka fiirsadaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofku intuu erey ku dhawaaqo maa yulqii lahu baalan isagoo aanu arkayn wax miisaanaba inuu leeyahy ereygaas inuu 70 sano masaafad la socdo naarta ugu sii dhaadhacayo marka sharciguna dee wax lagu kaftamo maaha waa arrin caqiida waa arrin diina waa arrin waxya marka qofku uu ilaalinaya qowlkiisa iyo ficilkiisaba بارك الله فيك شيخ محمد بالمسألة وين يدل الساجدون إن شاء الله أنت أخذت تلفونك أنا كنا نقول مرابحة سي أي بانك الدنيا كم عشان شيخ محمد وحل اللي هي وحكوش رأي غموض فربضان أمام مدمدو فربضان بدك قارئ كود لي نسيت هذا الكود جان ما حيكون صح مثلا شيخ محمد النظام كبنوكتا الإسلامي جاء مرابحة كل شقينية قاب كبيت هاي إن أمران وحيابها لا تلمامه waxyaaba qaarkood baan ka soo qaadan doonaa insha Allah laakiin si guud sideeba diinta islaamka ugu talagashay Sheekh Maxamed muraabaxadu saharaba inuu soo sheegnay waa beec waa iib qofkan macmiilka ah iyo baankan wax laga soo codsaday ay wax kala iibsanayaan baanko qurana ma xataa qof taajir oo ganacsada ayaa barnaamijkan iska samaysan kara oo de wax caam weeye markaas waxa uu soo qoranaya qofku codsiyo wuxuu leeyahay waxaan doonayaa ina ii soo iibisaan alaab nooca iyo noocaas oo qiimaheeduna inta ay codsigaas soo qoranaya wax heshiisoo iiba marka lama galayo waa codsi dalabun baankuna uu ka jawaabaya wuxuu leeyahay codsigaagii waanu aqbalnay waanaan ku soo iibinaynaa alaabta wax kale oo marka heshiisoo la galaya ma jiro waxa marka baanku uu raadinaya alaabtii uu soo iibinaya waanu la soo wareegaya ama wadanka ka iibiyo gudihiisa ama dibadda ka soo iibiyo isagoo alaabtii laga dalbaday macmiilku ka dalbaday qofka macaamilka shaqo ahaa bank haya oo la soo wareegay buu u yeedhaya wuxuu leeyahay alaabtii aad naga codsatay waa tan intaasana laga siiyay annaguna muraabaxaanu ku sameynaa ribix iyo faa'iidaanu ka rabnaado waxaanu ku saarnay intaasaanu ku saarnay de haddaynu kala iibsanaynaa nagala wareeg qofkiina markaa heshiiskii buu saxeexaya wuxuu leeyahay saacadan laga bilaabo waan ka iibsaday waanan kala wareegay lacagtiina muddada aad soo sheegatay baan ku bixinaya وبال والبا وحسن بحنايا 12 كابلود warku saasuu ku cadaanaya laakiin waxa qalada in heshiis la saxeexo oo wax la kala iibsado iyadoo wali baanku aanu alaabta soo iibsanin heshiis lama gali karo waa qalad waxa labaad oo qalada hadii midalan baanku wixii intuu soo iibsado isagoon la wareegin uu qofku yiraahdo adigu qaado taasina waa qalad labaad marka arrimaha hadiya jeer xagga fulinta qaladaadka ka dhaca kuwaasa kamida سؤال فربضانو شيخ محمد سورة أساسا هو سكلية واسكال عفنا مادama si guud ba aad u dhamaysay Sheekh Maxamed muraabaxada nidaamkan bunuugta islaamiga ku shaqeeya Sheekh Maxamed ma mid lagu talagaliyo oo banki ugu talagaliyo qasaariye faa'iidaba mise waa faa'iido doon go'an oo faa'iidun baaba laga doonaya talabaad waqtiga tusaalahan banki uu qabtay inuu ku bixiyo qofku hadduu ku bixin waayo ma lagu kordhin karaa sharcan mise waa mamnuuc oo intuu ma laga doonaya intuu doon hala maqnaade walba su'aalada muhiim ah runtii qofku marka uu baac mushtari yahay la banki waa baac mushtari oo ganacsade sida dadkan ganacsado alaabta u soo iibiyaan uga sii macaashaan oo kale waan u bareeraa oo ku tala gala khasaariye faa'iidada oo alaabtan iyada banki marka uu soo iibsado intaan wari qofkii gaarsiinin hadii ceebi ku soo baxdo ceebtaas waa inuu cidii uu ka soo iibsaday kula noqdaa on kasta markii lagaga cararin taas waa qodob hadii alaabtii maqaadiri ku dhacdo oo baddu ay la degto ama iyada bakhaar taalaba ay gubato intii uu banku soo iibsaday de isaga isu qaba oo khasaarahaasina waa mid uu bareeraya sida qof kasta oo ka baac mushtariiba alaabtu soo iibsaday intaan laga sii iibsan hadii dhibaata ay ku dhacdo isagu isugu qabo arinta labaad jirtaana waxa weeye su'aasha kale oo ah hadii qofkii macmiilka ahaa sanadkii loo qabtay uu ku bixin waayo wax la saari karaa ma jiro oo ama ganaaxa ama la oranayo waqtigii baad ku bixin weydo waxba lagu sii saaraya nidaamkaasi waa nidaamka baananka ribada ku shaqeeyaan laakiin waxa furan damaanad baa qofkan laga hayay ama rahan baa laga hayay in garsoorka la geeyo oo wixii rahanta looga hayay qofkan banku uu wixiisii ka goosto hadii uu doonayo inuu markaa dadkiisa la saayiro waa sida fiican waa in qofkii muddadii loo kordhiyaa lala eega maaragtay wixin uu sheegay ee dhibaatada ah ilaahay wuxuu waa in kaana duu usratin fanadhiratun ila maysara qofkii duruufi ay ku timaado hal suuga ilaa inta uu xelayo
marka qofkii cudurdaarka uu soo qadimay haddii baanku u arko inuu macquul yahay waa in loo kaadiyaa 6 bilood oo kale sanad kale laakiin wax la saari karo lagu kordhin karaa ma jiro. بارك الله فيك شيخ محمد إن هدي بانكي مرابحات كل شقيني وقالي هي سادتك قاركون من كدودي أنا كل بوياني إن بنوك ربوية ما بنينا سايو أو dadka qaar waxa leeyahay Sheekh Maxamed boqolkiiba 12 wax ka badan buu doonaya banki islaami gaar muraabaxada ka shaqeynaya inuu faa'iido dul saarto kan ribadana wuxuu doonaya inuu boqolkiiba 4 2 5 uu saaro marka baahidii ba kalifaysa dadkii qaar inay ribada u cararaan sharcan arinkaasi waxa ka soo qaad ma leedahay ama diintu maxay ka qabtaa in xalaal qaaliya loo gudbo xaraan jaban taas waa qalad aynu qadino jawaabta aynu soo qadinay taasi sax maaha cudurdaarna ma aha qofku inuu yiraahdo xalaashi way qaaliyowday xaraan jaban baa raadsanaya taasi waa qalad aqliguna wuu diidayaa sharcigeennuna wuu diidayaa waad baahan tahay looma bahla cuno bay yiraahdaan Soomaalidu oo imika adigoo baahi ay kugu dhacday bay ku leeyihiin dee wax halkaa yaalo ama bakhtiya ama liitaha cunine wadaad dhimanaysa dhareerka la iska duwa steel bay ku leeyihiin waa mahmaa wanaagsan almuhim marka hore qoladan baananka islaamiga waxa laga maarmaana ummadooda inay dee u naxariistaan waa arin xilkaas waa mid saaran inkasta oo xagga sharciga marka la eego faa'iidada aan la xadidin oo midal baa mushtariga oo kale marna alaabtooda khasaar ay ku iibiyaan marka suuqu keeno mar wax yar bay ka helaan mar faa'iido badan bay ka helaan oo sharcigeenu faa'iidada ma xadido oo ma xakameeyo suuqa xakameeyo oo sidaan khasaarahaba qofka looga hor joogsanaynin mararka qaar kood alaabtiisa khasaare ugu iibin karo faa'iidadana looma xadidin taasi waa qodob laakiin marka meesha yaala waxa weeyaan naxariis baa laga maarmaana oo qofku inaanu noqonin tiisoo qura mid u fikiraye waa in bulshada loo naxariistaa oo tusaale ahaan lacagtan baanku uu hayo waa lacagtii bulshada depositka ahayd ee dadweynaha uu hayay markan uu ku shaqaysanayo baanku dee iyaga amaahinaya waxna kama doonayaan haddaba baanku marka uu iyagii wax ugu soo iibinayo ee uu isagii ka baaca mushtaraynayo lacagtoodii ilaa lacagtan badhna isagaana badhna dadweynaha leh waa in faa'iidada uu saarayo uu markaa fududeeyaa oo ay la mid noqotaa ama ka yaraataa baanka ribada ahi intuu saarayo in la eg ama ka yar waa inay noqotaa laakiin dee sidan dadku ay ku cabanayaan arrintii waa inaanay u muuqanin inuu baanku baahida dadka un ka faa'iidaysanayo haddii xaaladdu sidaa u muuqato dee cadhadan iminka jirtoo kala imanaysa markaa mas-uuliyiinta baananka marar badan waanu sheegnay iyaguna way aqbaleenoo wax waa ka degaynaa waa ka dhimaynaa bay yidhaahdeen oo waanu gaadhsiinay fariintaa iyo cabashadaa dadweynaha marka naxariistaasaa laga maarmaana in dadkii loo naxariisto kaa xaaraanta ee soo ordaya inta uu ku baaqaya in leeg waa inay ka dhigaan ama ka yareeya marka laakiin ma noqonayso gar iyo daw iyo sharci ma noqonayso in la yidhaahdo xaaraantii shaygii xalaashaa way nagu qaaleeyeen muraabaxadii mid xaaraana baynu keensanaynaa oo inoo jaban taasi qalad weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam dadka baa mushtarigaa u duceeyeyo waxa uu raximallahu mar'an samxan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtada allahu naxariisto qof naxariis badan oo dadka u fududaynaya markuu wax ka sii iibinaya iyo markuu wax ka soo iibsanaya iyo marka uu amaahda ka qaadanaya uu ku leeyahay saddexdaaba qofka ummadda u naxariista allah u naxariistay wuxuu qofka ummadda u saamaxaad badan ducada nabiga si loo helo cabashadani si ay u yaraato waa in dib la isugu noqdaa laga degaa marka labada jawaaboodba jawaabtaasina cudurdaar noqon mayso xalaashii baa la qaaliyey xaaraan baanu keenaynaa tan kanala in lagu hayo un meel culus oo dadkii ka qaylinayaan sax maaha wallahu aclam waata sheekh maxamed waa ka socon doonaa laakiin mawduuca weli kayla dhex bixi mayno insha allah si aynu wax fara badan uga iftiimino dhegeystayaasha barnaamijka dariiqa toosan ku xidhan ee idaacadda qaranka sheekh maxamed waxyaabaha muraabaxadaasi ka taagan dadka qaarkood siday sheegayaan waxaa ka mid ah alaab in la kala iibsadaa sheegtay oo qofka ka faa'iidi kara banki xaqna uu leeyahay intuu saaranayo inkastoo ay muhiim tahay saad xustay inuu dadka u naxariisto oo turaala uu yeesho sheekh waxay leeyihiin iyagu alaab ay iibin maayaan wax odhan qofkii soo qiimayso qiimihuun bay u keenayaan deeta lacag buu saarayaa toosa bangigii marka taasi ma noqonaysaa hadduu lacag intuu amaahiyo saaro isagoon waxba la soo wareegin sidaad sheegtay ribadii lafteedii arrintaas ma jirtaan filaya uma badna dee waa laga yaabaa shaqaalaha qaarkood inay qaldaane laakiin lacag caddaana dadka lama siiya alaabaa loo soo iibiyaa baankuna dee qofka lacag caddaana codsada kama yeelo waxa kaloo qalada qofku inuu matal macrad oo kale baabuurta iibinaya intuu u tago idhaahdo baankiiow macradkaa iga soo iibi gaadhay markuu baankii u iibiyana
inuu qofkii dib uga iibiyo qofkii macradka oo uu lacag dib uga qaato taasoo kale qaladaadkaasaa dhaca laakiin lacag caddaana in laysa siiyo dulsaar la saaro waa xaaraan wey iyadu dalku wuxuu u baahan yahay faa'iido iyo inuu xidhiidha la yeesho caalamkii taasina waxay u baahan tahay adduunyadii wax ka shaqaynaya baanankan conventional bankiska la yidhahdo amaba banuugtan ribowiga ah banuugta ganacsiga aan islaamiga ahayn si xidhiidhada somaliland loo samayso dalalka baanankaasi kale ka jiraan sheekh maxamed ma u noqonaysaa mid u bannaysa sharcan in bangiyo ribo dalkii la furo ama loo ogolaado qaacidaa jirta qofka gaalka in lala shaqaysan karo qofka gaalka ah adna waad u shaqayn kartaa isna wuu kuu shaqayn karaa waana wada shaqaysan kartaan laakiin qaacidada shardiga u xidhan waxa weeye inaan xaaraan lagu wada shaqaysanin oo gaalkii hadduu kudhaa doofaarka iga shaqee khamriga iga shaqee ribada iga shaqee ka shaqayn maysid waayo adigu diintaadii baad dhowraysaa ilaahay hadalkiisii baad tixgelinaysaa marka waynu la shaqaysanaynaa caalamka siduu nebiguba ula shaqaysan jiray calayhi salaatu wasalaam gaalada waxbuu ka iibsan jiray waxbay amaahin jireen xidhiidh bay lahaayeen laakiin mar walba wixii xuduudda xalaasha ayaa lagu egaanayaa oo xaaraantii dee uma badrheerayno inagoo dee iska ilaalinaya ilaahay caasino sidoo kale waxaa iska macruufa hadda adduunyada baanan badan oo muctarafa baa jiro oo aad u badan oo baanankii islaamiga ahaaya kuwaasaynu xidhiidhada ka samaysanaynaa faracyadana aynu ka furanaynaa elsiyadana lagu diranaya oo dee adduunyadao dhanba ka jiraba gaaliya islaamba way ka jiraan waana baanan islaamiya marka xalka kuwaasa inoo noqonaya insha allah sheekh maxamed sidoo kale rabadaanta markaynu arki weynoo kale iyo malaha amaakintan barakaysanee dalka sacuudiga ku yaala sida maka oo kale ayaa dadka qaarkood waxay leeyihiin iyagoo taa ka duulaya baanankan ganacsigu ama ribadu waxa ay ka furan yihiin dalal fara badan oo islaama inaykuna kama duwanin sacuudigaabay ka furan yihiin sidii rabadaanta laga arkayo kale marka miyaynu ku aqoon badannahay haddii dalalkii ilaa kuwii goobaha barakaysan ku yaalan ay ka furan yihiin inanka maxaa inoo diidaya waxaynu inoo diidaya qur-aanka ilaahay hadduu sacuudigu khilaafo maynu ku raacayna ninbaa waxaa layii wuxuu ka yimi sacuudigu beri ka soo shaqaysan jiro markaasuu ka yimidoo intuu waddanka yimid salaad buu tukado salaadii buu kharibay markaa waxaa la war salaadu halkaa iyo halkaasay ka jaban tahay dee hagaaji wuxuu hi adar sacuudiguba saas uu tukadaa sacuudiga aanu ka nimidba saas uu tukan jiray wuxuu u qaatay sacuudiga in wax lagu saxayo sacuudigu waa dad inagoo kale ah waa dowlad inagoo kale ah makiya madiinaha joogaan iyo xarameynkii laakiin qaladaad badan bay yeelanayaan sidaynu inaguba u yeelanayno sax bay ayay noqon karaan masaladan baananka culimadoodu markii ay furmayaan aad bay uga digeen haddadan way ka hadlaan haddaad weydiisa iminka culimada sacuudiga iyo muftiga iyo guddida daa'imka ah ee ka warranta fatwada wax xaaraan bay ku odhanayaan marka way kala duwan yihiin go'aamaday dowladuhu qaataan iyo diintu dowladuhu macnaheedu maaha inay dee diintii ku wada soconayaan waa masale ay ku khilaafsan yihiin shareecada saa daraaddeed inooma noqonayso arrin daliil noqota sidoo kale dee waxaad iska ogsoontahay sacuudigu waa boqortooye marka macnaheedu waxa weye boqortooyadana inaynu qaadanno oo haddii layidhi baankooda aan qaadanno dee boqortooyadiina ha qaataan qolada markaa ka hadlaya haddii layidhaha boqortooyada qaata ma yeelayaan saasoo kale baankii ribada ahaana waa noocaasoo kale islaamku wuxuu ogol yahay mar walba dadka madaxda laga dhigaya inay yihiin dad lasoo doortay oo loo soo xulay oo aqoontoodii ammaanadoodii awooddooda lagu soo xulay sistemka boqortooyadaabaan la ogolaynba almuhim shakhsiyaad lama daliishada waxaa la daliishadaa shareecada islaamka aad ba maasanta sheekh maxamed culimadii waa laysula soo galay culimmadu xaqii bay caddeeyeen ribadu waa xaaraan bay idhaaheen marka waxaa laleeyahay culimmadan maslaxad iyo dantoodun bay eeganayaanoo sheerar bay ku leeyihiin banankan dalka furanee gudaha dalka ka furan marka danahoodii iyo xidhiidho ka dhexeeya iyo waraaddo laftoodu gacanba ku leh baanankan iyo shirkadihii darteed bay uga hadlayaan sideedaba marka waxna waa waxaa dee shay do ahoo garahoo lagu hadlaya waxna waa dacaayaddu way iska badan yihiin oo qof marka uu wax doonaya laga jawaabo dabcan dacaayad baa imanaysa baananka ta aynu odhanayno horeynu u nidhi wixii markaa lagaga wanaagsan yahay iyaga ku habboonna waa inagii hore u soo sheegnay taa waynu ka soo hadallay laakiin waxaa macruufa oo habboon in la ogaado qofku hadduu meel xalaala wax ku leeyahay oo meesha xaaraantee la furayo uu idhaahdo ka daaya dee xaq buu leeyahay iminka hadduu nin maqaaxi xalaala shubayo oo mid uu ka ag furo maqaaxi xaaraan oo khamri iibinaysa dee xaq buu leeyahy inuu idhahdo war maqaaxida xaaraantaa dadka ka daayo taydanoo kale oo xalaalo furo marka ceeb ma aha qofku inuu saami meel ku yeesho ceeb maaha baanankan islaamiga ah laftigoodu inay yidhaahdaan war baanan ribaha furina annaguna waanu jebinaynaa wixii dhaliilahe aanu leennahay iyo ceebana noo sheega
laakiin dadka ribada ka daaya inay yidhaahdaan baanankan islaamiga laftigooda muraabaxada bixinaya xaq bay u leeyihin ee inay iyagu qudhigooda habradaan oo ay yidhaahdaan idinkaa laydiin jeedaayo maaragtay maaha waa inuu ku doodaayo qofku yidhahdaa war anigu sidanaan wuxu iibinaya waa xalaal shareecadii bay waafaqsan tahay qaladkaygana ii sheega waanaan qaadanaya laakiin ka xaaraamta ah inaga joojiya gar buu u leeyahay markaa runtii taa waxaan kaga jawaabi lahaa wixii dacaadina inay meesha ka baxaan wixii xaq iyo garana la isu soo taago ugu dambeyntii qodobkaasaan sheekh maxamed u dhaafno maxaa dhibaato ka dhalanaya ribada haddii la cuno amaba la jideeyo ama la isticmaalo dhibaatooyinkeeda waa macruuf aad bay u badan yihin dee ilaahay baaba ka jawaaba wuxuu uhi yamxaqu allaahu riba wa yurbi sadaqaat meesha riba ku jirta waa baabi'iyaa buu ilaahay waan baabi'iyaa bulshadeenna markaad yaro waraysato qolyaha qaatay ribada maalan qaar baa ka qaadan jiray hay-ada samafal sheegtaa berye dhexdeeda bixin jiray lacag caddaan ahoo dulsaar leh markaa bacadlayaasha iyo qolyaha booshariyada leh iyo bakhaarada iyo qaarba iyo dumarada iyo qaar baa ka qaadan jiray lacag caddaanoo dulsaar leh oo ribe leh mid waliba wuxuu ku odhanayaa meheradaydu sida iigu miyir qabtay ee ay iigu shaqaynaysuun baan amaahdaa qaatay lacagtaa caddaanka ee dulsaarka leh markiiba iga gubatay meel kalena uma aanaynaya lacagtii ribada ahayd un baan u aanaynaya marka dhibaatada u horraysa ku jirtaa waa taa dhibaatada labaada ku jirtaa waxa weeye waa dhiig miirato oo maalan qofkan wax amaahinaya lacagta caddaanka ah isagu dadkii fuqarada ahaabuu dul baxaya iyagiibuu wax ka urursanaya halkuu wax ka siin lahaa marka dhibaatada taalla waxa qofkii faqiirka ahaa ee wax la siin lahaabaa isagii wax laga sugaya markuu keeni kari waana waa lagu sii laablaabaya markuu keeni kari waana waa lagu sii kordhinaya sidaa daraaddeed innagoo ka cabanaynay dhaqaalihiioo xumaaday inteenna yarina bannaankay u baxaysa oo baanankaa ribowigaabaa qaadanaya dhibaatada ay leedahay aad bay u badan tahay kuweelahaasa ka mid a aad baa u mahadsan tahay sheekh maxamed dhegeystayaal barnaamijkeenii dariiqa toos halkaasi haynoogu joogo tan iyo intaan barnaamijka soo socda isugu iman doono insha allah waxaan u mahadnaqaya maxamed jaamac igaal jarmal iyo maxamed jaamir cabdi jibriil shiine iyo sheekh maxamed sheekh cumar dirir waa anigo maxamed axmed cabdillahi shabeelo tan iyo intaan barnaamijka soo socda isugu iman doonona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu